بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوا هذا مركلة بغداد أونلاين أكاديمي حلقتين أسبوع لها أهيد أسبوعا حلقة ديارين هذا مركان كجري قيبة كلا ددوان ونفنتي أن فيريي وحاجة صوب حدي قيب آد مهمة وأنا أسليها إن شاء الله تعالى وحنا فائده ayay noqon doontaa nin la yiraahdo master Dr. Kent Manth Dr. Kent Keith la yiraahdo oo Mareykan ayaa wuxuu qoray kitaabkaasi magaciisu wuxuu u bixiyay anyway ala ayati xaal yani kitaabkaasi wuxuu uga hadlay 10 dardaaran oo uu kula dardaarmaya aadanaha oo dhan oo uu leeyahay 10kaasi dardaaran halagu dhaqmo hal la qaato 10kaasi dardaaran markaan fiiriyay runtii aad bay ii soo jiiteen waxaan jeclaystay inaan isbuucan xalaqada ka dhigo 10kaasi dardaaran 10ka dardaaran bal aan isla eegno sayihiin iyo macaanidooda anagoo ku fiirinayno muxuu ahaa fiirin oo wanaagsan oo niyasami ku jirta insha Allah taala dardaaranka koowaad wuxuu leeyahay dadka وددان منطقيين ahayn waa dad anaaniyiin ah maslaxadoodi inta badan ka fikiro dadka jeclaaw ala ayati xaal dardaaran aad u yaab leh bani aadanka inta badan waxa la isku raacsan yahay inuu yahay anaani inuu wax walba asaga isla jecel yahay inuu wax walba inuu asaga iska dhac arka jecel yahay maslaxadiisa inuu marka hore horumariyo inuu jecel yahay inuu raaxa iyo nabadgelyo iyo barwaaqa uu ku dhex jiro inuu nacib yahay challenge-ga caqabadaha iyo ka hor imaanshada inuu nacib yahay marka dadka inta badan maslaxadooda ay ka fikiraan marka wuxuu leeyahay dadka inay maslaxadooda ka fikiraan ha ku nicna ku jeclaaw ala ayati xaal yani runtii waa dhinac positive aad u sareeya markii la fiiriyo qofka bani aadanka markaad aragto inuu danihiisa mar walba fiirinaya inaad u aragto wax abuur oo bani aadanka inta badan ay u badan yihiin oo aadan u arkin wax xun qofkan inuu qof shareed yahay qof dhibaad inuu yahay inaadan u arkin runtii aad qodob aad u muhiim weeyaan sababtoo ah bani aadanka iyo ficilkiisa in la kala qaado ayaa meesha ku jirta qofkani asaga bani aadan oo adigoo kala weeyaan ficil ayaa ka iman kara xun ficilkaasi xun iyo asaga inaad laba u kala qaado qofkan wuu fiican yahay laakiin ficilkiisa xun inaad dhihi karto qofka iyo aad ficilka kala saari karto aad qodobkaasi muhiim u tahay dardaaranka labaad wuxuu leeyahay haddii aad wanaag samayso dadka waxay kugu tuhmi doonaan inaad dan ka leedahay wanaag sameey ala ayati xaal yani wanaag nooc walbuu yahay hadaad samayso dadka aad u samaynayso dad wanaagaas aad ugu baahan ha ahaadana dad aad ugu baahnayn ha ahaadana kuwii aad u samaysay iyo kuwa kale oo ka aga dhowba waxay u badan tahay hadaad wanaag samayso dadka inay ku yiraahdaan tolow dan buu ka leeyahay muxuu dantu ka leeyahay maxay tahay يعني مر walba waxa tahay qof oo la tuhmaya tahay taas marka hadii lacala dadkii aysan baqarsanin ku dhawaaqaan ku yiraahdaan adiga maxaad dan oo kugu jiro kulli wax bad ku wadataa maxaad meesha ka wadataa mashruuc mad ku soo qaadatay hadii lagu yiraahdo khayrkaas ha ka istaagine wanaagaaga wad ala ayati xaal buu ku leeyahay dardaaranka saddexaad oo asagana muhiimka waxa weeyaan wuxuu yiri hadaad guuleysato waxaad yeelan doontaa asxaab oo been ah oo bug ah oo magac u yeel ah iyo cadow dhab ah oo ku nacab oo cadowgaaga saxda ahaya wuxuu yiri guuleyso ala ayati xaal yani markaad adiga aad guuleysato oo qof guuleystay noloshiisa ku guuleystay horumar sameeyay waxyaabo dadka ay aad ugu qanceen ku farxeen gaaray dad badan ba asxaab ku noqon doono carabkii wuxuu yiri إذا قل مالي فلا خل يصاحبني وفي الزيادة كل الناس خلاني وحير هدو مالك يجي يرادو وح إلى صاحبه يمله لكن هدو مالك يجيبته دتكو دن وإلى صاحبه يعني مركا هدي أدركتو أديكو قوليستي دتك أصحابته فرح بدن كل جود كجرب تاجن لما أنتوا أصحابكم وضعنا أجو مركا أي حالة حماته أنت نظيف كأه أو أصحابته صحد أبا كوس وهاري دونتو لكن cadowgaaga asaga ma kala nooc noqde waxa weeyaan cadow dhaba uu noqon kara guuleyso dad asxaabaad u maleynaysay
oo cadow noqday markay gadaal ka soo baxaan ha niyijabin oo has dhiibin guushaada ku taagnaa buu ku leeyahay. war dardaaran runtii aad u muhiima, yacni ha isdhiibin, mar walbo taada ku tasho, tan qofka kale meel iska dhig ayuu ka wadaa. dardaaranka kale ee afaraad wuxuu leeyahay wanaaga aad maanta samaynayso berri waa la hilmaami doonaa, ee wanaaga samee calaa ayati xaal. bini aadamka markaad wanaag u samayso oo aad abaal u gasho oo wax aad islahayd mahad celin buu qofkaani kugu jawaabi doonaa. markuu qofku ku yiraahdo maxaad ii samaysay, ma waxaas baa wax weyn ah, ma waxaas wax la sheega ah, inta in ka badan baa la sameeyaa, ma waxaad igu samaysay inaad aniga aan kugu abaal sheegato, iyo inta in ka badan baa imaan karta. marka wanaaga iyo samafalka aad samaynaysa ha u samaynin inuu qofka kugu mahad celiye, khayrka iyo wanaaga u sameey si adiga iyo doonitaankaaga iyo inaad wanaagaada gudbisa ah. marka wax caadi waay inaad in badan ay dhacdo wax aad maanta samaysay in beriba la iska hilmaamaba. yacni adiga waxaad islahayd waxaan ugu yaraan qofkan sanado fara badan bay maskaxdiisa ku jiri doonaan, wanaagaaga ma hilmaami doono, maalinta dambena albaabka inuu kaa soo xirtaad arkaysaa. marka yaysan ku murjinin, yaysan walwal ku gelinin, yaysan cadaawad iyo cuqdad iyo xaasidnimo kugu abuurin. wanaagaaga sii wad, asaga iyo inta kale, iyada iyo inta kale oo dhan wanaagaas u samee buu leeyahay. wuxuu yidhi sidoo kale runta iyo saraaxada, oo qofka inaad qof run badan aad ahaato, warkaagan uu sariix ahaado, waxay kuu soo jiidi doontaa cambaarayn fara badan. dad fara badan baa ku eedi doono, cadow kuu arki doono oo ku dhihi doono warniyow runtaan maxaa kuu geystay, maad siyaasadaysid, maad maldahdid, maad iska qurxisid, maad hadalka wanaajisid, maxaad banaanka isu soo dhigaysaa. wuxuu leeyahay runta sheeg calaa ayati xaal. maasha allah, gaal way runtii hadduu muslim ahaan la waa xikmada kulligood. bini aadamka akhlaaqiyaadka la isku dhaafay. reer galbeedka maxay nooga hormareen baan leenahay, akhlaaqiyaadkana inta badan wax ku dhisaan. qodobka kale oo lixaad wuxuu leeyahay ragga kuwoodii waaweyn iyo haweenka kuwoodii waaweyn ee xambaarsan afkaarta waaweyn waxaa joojin kara ragga iyo haweenka kuwoogii caqliga yar maangaabka ah ee afkaar waaweyn xambaarsanaa calaa ayati xaal. yacni qof ilaahay uu siiyey maskax iyo hiba iyo hal abuurnimo ilaahay kaa dhigay, inaad adiga dhaqaaqdo ood horu socod noqoto ood wax soo kordhiso, markaad isku daydo ood dhaqaaqdo, kuwa maangaabba waxay ku leeyihiin war heedhe, war isgaabi, war meeshaan meesheedi ma aha, war halkaan ha ku dhawaaqin, war khatar baad ku socotaa, war is ilaali. markaasaa qofkii uu rumaysanayaa wixii oo weynaa iyo maskaxdii weyneed iyo isbedelkii weynaa oo asagan uu ka faa'iidi lahaa, ummaddan uu faa'iideyn lahaa buu ka joogsanaya. marka wuxuu leeyahay yaysan dadka maangaabka ah ku joojinine afkaartaadii xambaarsanaaw calaa ayati xaal. qodobka toddobaad wuxuu leeyahay dadka waxay jecel yihiin dadka reer tabareedka ah, laakiin waxay raacayaan dadka kibran ayay raacayaan, dadka madaxda iyo siyaasiyiinta, ganacsatada waaweyn, muxuu ahaa fanaaniinta caanka ah, yacni dadka magaca iyo sumcadda leh ayay raacayaan. laakiin maxay jecel yihiin? dadka reer tabareedka ayay jecel yihiin. wuxuu leeyahay adiga u jihaad dadka reer tabareedka dartood calaa ayati xaal. yacni adiga mar walba dadka reer tabareedka la wada jecel yahay, laakiin layskaga tegaya adiga kuwa kaaga dhowow, kuwa garab istaag, kuwa caawi, kuwaas dartood u hadal, kuwaas dartood u dhaqaaq. mar walba ahaw qof oo farxad ku abuura dadka reer tabareedka ee masaakiinta. dardaarankiisa sideedaad wuxuu leeyahay waxa aad sanado dhisaysay ayaa waxay ku dumi karaan habeen iyo maalin. dhis calaa ayati xaal. yacni wixii aad sanado soo dhisaysay oo soo diyaarinaysay oo qarash fara badan, fikir fara badan, muxuu ahaa aad gelisay, talooyin fara badan aad gelisay, ayaa waxaa laga yaabaa waxaal adduunye inay hal jeer soo dhacaan. adiga intaad moral jabto, qarkan iska tuuraya iyo aniga adduunyo waa iga dhamaatay iyo ma hadda iyo markale aan soo bilaabi karaa iyo muxuu ahaa inaad dad kale ku hoos noolaato ha samaynayna. wuxuu leeyahay bilow mar kale dhis, mar kale tilaabadaada hore u qaad. waxaad u moodaa inuu xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahaa haddii qiyaamaha uu kaco oo qiyaamaha uu dhaco, idaa qaamat alqiyaama wa fii yadi axadikum, gacantiina axadkiina gacantiisana ay ku jirto laan, falyaqrishaa ha abuuro. yani haddii qiyaamaha xilligiisa la gaaro adoo laan abuuri rabana qiyaamihii u bilowdo ha isdhihin qiyaamahaba dhace laantan maxay taraysaa,
laanta abuur buu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. ninkan wuxuu ku leeyahay wixii aad soo dhisaysay sanadaha hadday kaa burburaan adduunya waa dhammaatay ha dhihine mar kale dhis xaal adduunya sidaas iska ah. qodobka sagaalaad wuxuu leeyahay dadka waxay u baahan yihiin caawintaada laakiin waxay dadkaasi wayna ku soo weerarayaan. dadkii caawintaaday u baahan yihiin laakiin waxaa laga yaabaa inay ku weeraraan oo ay ku eedeeyaan oo ay eed dusha kaa saaraan. dadka caawi calaa ayati xaal. bini aadamka mar walba wanaagaada kaliya ma arkaya, xumaantaadana waa arkaya. halkii xumaanta ah waxaa laga yaabaa inuu 100 jeer arkayo, wanaagaadana 1 jeer arkaya. marka haddii dadkii adiga ay u baahan yihiin caawintaada aad u jeedid inay caawin u baahan yihiin haddana iyaga ay ku eedeynayaan ay ku leeyihiin qandaraasaad nagu soo qaadatay, annagaad nagu dul shaqaysataa, adiga keligaaba meeshaan wax walba ka qaraabto, anaga waxba nooma haysid, maslaxadaada ku wado. dadkiina aad hubto inay adiga kuu baahan yihiin haddaad joojiso wanaagaasi uu joogsanaya dadkaasi caawi calaa ayati xaal. xaqiiqatan wax aad u badan wuxuuna muujinayaa ninkan mar walba wanaaga wad adiga xumaan oo dhan iska leexi. qodobka 10aad ee ugu dambeeya wuxuu leeyahay haddii caalamka aad siiso waxa ugu wanaagsaneed heli karto dad ayaa waxay kugu soo jawaabi doonaan xumaan. yani caalamka oo dhan ma aha xataa gurigaaga iyo ilmahaaga iyo dariskaaga iyo tuuladaada degmadaada deegaankaada dalkaaga ma aha. caalamka oo dhan waxa ugu wanaagsan ee gaarsiin karta haddii aad gaarsiiso dad ayaa waxay kugu soo jawaabi doonaan xumaan. maxaad samaynaysaa? wuxuu ku leeyahay calaa ayati xaal caalamka waxaad siisaa wax ugu wanaagsan siin karto, wax ugu wanaagsan caalamka kusoo kordhin karto kusoo kordhi. 10kan dardaaran markaad fiiriso si guud ahaana wax diinteena ay kaga soo horjeedaan aniga kuma arag. kulligood waxay xambaarsan yihiin macaani wanaagsan oo insaannimo ay ku jirto, fikir wanaagsan oo ku jiro, tafaa'ul oo ku jiro, idfac billati hiya ahsan, mid wanaagsan ugu jawaab celiyo rasuulka ilaahi subhanahu wa ta'ala uu yiri ay ku jirto. si guud ahaan marka soo koobtana macnaheedu 10kan dardaaran oo dhan waxay ku soo ururayaan aayada ilaahi subhanahu wa ta'ala uu yiri qul inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin. waxaa tiraahdaa nabi allow aniga salaadayda iyo camalkayga noloshayda dhimashadayda kulligood ilaahay bay u sugnaadeen, ilaahay baa iska leh. yacni aniga wax walba oon samaynayo waxaan u samaynayaa lillaahi. kama rabo dadka abaalmarin, kama rabo mahad celin, kama rabo dhiiragelin. sidaa darteed wuxuu ku leeyahay waxaan oo dhan oo dadka xumaanta ah ee dhacaya dunida ka imaan kara adiga wanaag ugu jawaab, hawshaadana ka wado, asxaankaadana ha joogto wasaasoo ka wada. waxaan rajaynaa insha allahu tacaala 10kaasi dardaaran inaad ka faa'iidaysateen, asxaabtu inaad sii gaarsiisaan. runtii macaani aad u qiimo fara badan oo weliba anaga khaasatan Soomaaliyan aan u baahannahay inay dadka isu qalbifiyowadaan, cuqdada iyo xumaanta la iska saaro, niyad samida la badiyo ayaan ay ka tarjumaysaa. waxaan filayaa insha allahu tacaala inay noqon doonto bilow fiican. qofkii rabana kitaabkaasi waa akhrisan karaa. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya xalaqadeena usbuucla ahayd. markale soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.